waxa macquul ah inaad leedahay calaamadihii xanuunka macaanka adigoo aan laakiin macaan lahayn iyadoo sheegaysa in macaanka kugu soo dhow yahay ama kugu soo socdo 5 calaamadood baan kula wadaagayaa oo arrintaa ku muujin kara. midda koobaad waxay tahay gaajo aad u fara badan, mar walba waad gaajoonaysaa, macaankii iyo dhanaankii labadiiba waxaad u cunaysaa si qeyr caadiya, mar walbana gaajaa ku haysa. midda labaad waxay tahay aragtidaadii ayaa soo daciiftay, sidii markii hore ay ahaan jirtay aragtidaadii maaha, saamayn baa soo gashay indhahaaga. midda saddexaad waxay tahay waxaad dareemaysaa kaboobiyo iyo xanxantoo kale gacmahaaga, lugahaaga, kulayl baad jirkaaga ka dareemaysaa. waa calaamad kale oo kuu sheegaysa inuu kusoo hayo xanuunka macaanku. midda afraad waxay tahay jirkaagibaa si fudud u xanuunsanaya, infectionkii afka ayaa kugu soo noqnoqonaya, afkaagibaa mar walba caabuq ku dhacaya, kaadi mareenkaagibaa mar walba infection leh, qufacbaad mar walba yeelanaysaa iyo infection laabta, duraygii ayaa mar walba kugu soo laalaabanaya oo waxa weeye aan xad lahayn. taasina waa calaamad kale oo tusaysaa in sonkortaada qaabka loo maamulayo jirkaaga wax ka qaldan yihiin, laga yaabana inuu macaan jirkaaga kusoo jiro. midda ugu dambaysa waa midda ugu muhiimsan, haraad joogta ah. mar walba qofku waa haraadan yahay, jirkiisu mar walba uu sooma lahaadsan yahay, mar walbana qofku wuxuu u baahan yahay inuu biyo cabo. taa waxaa keenaya jirkii qofku haraadan. inkastoo sonkor fara badan jirkaaga ku jirto ama sonkortu caadi tahay, haddana unugyadii jirkaagu waxa weeye khalkhalkan ku dhacay sonkorta iyo qaabka loo maamulayo aawadeed qaabkii ay u isticmaali lahayn ma yaqaanaan. taasaa ku keenaysa haraadka fara badan iyo sooma lahaadka jirkaaga.